xilli ay jiraan abaaro saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada, isla markaana ay soo tarayaan qayladhaanta ku aadan in dadka lala soo gaaro gargaar ay ugu horeeyaan biyo, ayaa deegaanada hoos yimaada degmada Wisil waxaa biyo dhaamin ka sameeyay musharax xildhibaan dowladda federaalka Soomaaliya Farxiye Cabdul oo qayb ka mid ah la gaarsiiyay deegaanka Dhagahaya, halkaas oo ay ku nool yihiin boqolaal qoys oo xoolo dhaqato ah, isla markaana ay saameyn ku yeelatay abaarta jirta. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Wisil Cabdigaraad Cumar Maxamed oo ka warbixiyay biyo dhaamintan ay sameynayso musharax xildhibaan dowladda federaalka Farxiye Cabdul ayaa sheegay in deegaankan ay soo gaarsiiyeen qoonda ka mid ah biyo dhaaminta ay ka wado deegaanada hoos yimaada degmada Wisil. musharax xildhibaan Farxiye Cabdul waa meesha aan joognaa waa Dhaghaye, waxaan rabnaa inaan soo gaarsiino dadkan biyo ay sadaqaysatay walaasheen Farxiye Cabdul oo runtii ah qof mutadawwac ah oo ku sadaqaysanahay biyo dhaamis dadkan degan area-dan Dhaghaye iyo Wisil iyo agaarkeeda. runtii waxay sadaqaysatay biyo 10 booyadood ah. area-dan Dhaghaye waxaa soo gaarsiinay maanta 4 booyadood oo ka mid ah 10kaas booyadood ee ugu talagalnay dadka degan area-dan Dhaghaye. runtii waa dad aad iyo aad meeshaan ugu durfaysan, waa dad ay iskugu darsantay colaad iyo abaar. runtii waa u jeedaan waxa ka muuqda deegaankii iyo sida uu yahay, waa meel biyo la'aan ah, waa meel ay ceel ka fog yahay. waxaan soo gaarsiinay 4 booyadood ee ugu talagalay inay dadkan ay ka faa'iideystaan ugu yaraan 50 qoys ama 60 qoys oo ugu talagalnay area-dan in ay degan. waxaa lagu shubay barkadaas weyn baa ugu shubnay, halkaas meel bay ka wada cabahayaan. waxaan rabnaa marka inaan uga duceyno qofkii sadaqaysatay Farxiye. waxaan leenahay Ilaahay ajri xasanaad ha ka siiyo, aakhiriya adduunna wixii Ilaahay ajri xasanaad leeyahay ka siiyo, aakhiriya adduunna waxa aad doonaysid Ilaahay ha kugu guuleeyo. runtii waa musharaxad oo u tartamaysa golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya. waxaan leenahay Ilaahay aakhiriya adduunba ha ku guuleeyo. runtii waan haynaa waa dadkii sidii aad nugu soo dhibtaan dadkii u gaarsiinay. qaar ka mid ah dadka deegaanka Dhaghaye ayaa ka mahad celiyay biyo dhaamintan ay soo gaarsiisay musharax xildhibaan dowladda federaalka Farxiye Cabdul, taa ay tilmaameen inay ku soo aaday xilli baahi weyn loo qabay oo deegaanka ay ka jirto abaar baahsan oo saameysay dadka iyo dunyada, iyagoo ku baaqay in lagu daysado tallaabada ay qaaday musharax xildhibaan Farxiye Cabdul. biyo 10 booyadood oo Farxiye Cabdul ay ugu tala gashay dadka deegaamada durufaysan deegaanka aan nahay Dhaghaye. anagu waa 4 booyadood waa naloo shubay 90% waraashan. waxaa leenahay ajri iyo xasanaad Allah ka siiyo, wixii dhiban Ilaahay wixii ku doonaysana Ilaahay ajri iyo xasanaad ugu siiyo. meeshaan biyaana noogu keenay la soo gaarsiiyay Wisil, deegaanka Wisileed 10 booyadood weeye. 10kaas booyadood wadamo badan baa loo kala fajabay. 4 booyadood oo ka mid ah oo loogu talagalay baana noogu keenay Dhaghaye. 4tii booyadood waana noo shubay, haddana waa la shubahayaa. markaan ka bacdi waxaan uga mahad celinaynaa Farxiye Cabdul oo biyahaas ka soo sadaqaysatay. waxaan leenahay kaleeto muslimiinta dhammaantood ganacsatadu way badan tahay, meel ay joogaanba waxaan rabnaa in sidaas iyo si ka badan loogu yimaado oo loogu daydo. dadkan dad daa'ifaysan weeye, aad bay u liitaan, dabcan xoolihii aad bay u daruufaysan yihiin. dadku waa la mid, colaadu iyaduna way ka daran tahay. waxaan rabnaa marka 90% muslimiinta dhammaantood waxaan gaarsiinaynaa iyo hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya waxaan gaarsiinaynaa qof bili aadana oo kaligiisoo shakhsiya ayaa keenay. dowladdana waxaan ka codsanaynaa sidaas iyo si ka mid ah iyo si ka sii badan. waxaan rabnaa inay nooga soo gaaraan ummadda ifaysan weeye, waana liitaan. waxaan rabnaa 90% inay nooga keenaan, nooga soo gaaraan rabnaa. gabadhaasna waa ku mahadsantahay 90%. aad baan muraadkeedana Allah u sahlo. 10 booyadood oo deegaanka Wisileed Cabdigaraad loo soo dhiibay. anaga 4 booyadood aan kugu talagalay haddaan deegaanka Dhagahayanahay, waana soo gaartay, waana loo shubay. dabadigeed aarteedina waa naloo shubay, dabadigeedina waa u jeedaan. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baan uga mahad celinayaa. bacdina gabadhii noo soo dhiibtay Farxiye Cabdul, ayadana ajri iyo amaal Allah ka siiyo. adduunka waxa ay ku doonaysana Ilaahay ha siiyo, aakhirana
في الجنة إلهي جنة هو قرقار أيضا ساسان لنا waxaan kala codsanaynaa ama ganacsi ha ahaadeen ama ninka la yiraahdo xildhibaan ha ahaadeen ama dawladda ha noqdeen ama ganacsi ha noqdeen deegaankani deegaan dhagaxyo weeye waa la ogyahay adduunka maanta jidaal baa ka jira jidaalkii haddana dadka colaad baa ugu darsantay ilaahay marka baan anagu hadda wax weydiisanaynaa laakiin muslimiinta waxaan rabnaa in ayada laftirkeedu qof shakhsiyaha hadda biyaha noo keentay waa uga ducaynay آخرنا قفكم من إلهي وترجع إلهي أيدي سوق شيء من ده وهليسة الدون كنا أمال بيلاد هاي مركب واحد ربنا مسلمان ترى من يسوق كله أما الدولة كل لما إن ضد كان عن قبضته بيوا أبهيهين أو نكل وأبهيهين وحي إلهي إن كسوق هذا قف كسوق ويرتها إن يسورونه وحي هلي كرتوا وجود ياخذه بأنك أصرينا